السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن سلام يا ولا الله الصوماليات. وحن سلام يا إن بدن بارد السلام يا وحن كهذا يا ما تعرفين مركي قحون تيجي بكيسي عن صومري إجا صومرتي وترى تلو كريب كي هرقف كي داوضة يدين كسر دري نينك عفرت عرورها نودار إنه يجري مرة بعرور تاع مركان كرهتكني ظروفتي ماشى الجلسي يعني دي كشيكين دورة على دين صوّده دبر يعني دي كسر شيء كل وقت كيف فهمي كرتان الظروف بقى جلسة وحنا تيجي كحكومة بان كائمي ويقول عليه أنت تروان كائمي وحنا كوري وحنا حيت إلا عاوية ما دام إنك يا فارس ما بتجرينا إلمها معرت يعرق عن معرت كريدنا الحمد لله رب العالمين قحنت لماذا نبكي هذا وانا كصوب حي وانا قاعد هي كندا إيمي قبل بدن بيوعي قالوا طيب هذا كشتوال كبيحدون تاع مركا يعني حيتي واحد كانوا وعي قالوا تاع صومالي ذا رجينا كديري دولة لماذا يوم حيتي إن دتكودوا يمرون بكوجو بيار كل بيعتوا بيانا وعي قالين بيوتها حرada marka waxa la dhahaa xiro ma ahay waa guri dabaqa oo Nairobi ku yaala oo ay inta badan way qariyaan oo maartay way qariyaan qofka aad duruufaysan iyo qofka amni darada shaqti waxa si ku xirayaan UNHCR marka xirada waxaan ku jiray adigu muddo hal sano iyo 6 bilood ku jiray markaas meeshaas aan galay waxay iga saxiixa waxa meeshu ila waa meel kadeeda naag baxoo ku haysata Kenyaati oo Janeefa la yiraahdo Allah cadaab waa nacbay taas Janeefa marka أنا أقول كامبا يعني كيانك ما كلا براناي حب بس أقول قب إصابة كوري دوي تسكجر كرتا وحوي وهدرسوا معنا دوي بنعبتها يو سئل جار بينو فيرس ظروف طبيعية شعرون قليل سلي إيران تدبر المرد جنا مركل سنة كلا تدبر الدجنايو حتى قولي قال يقف شو وحسن وايديس الشيء معناها هو كبحة لكن ما أنت فلاي نقول نبى كدجري كذا كم بقى معنا اللي يوقف شبكة يسوي الحمد لله رب العالمين إلهي ما كنت شاري ما هتصل علشان وقت كبح يساعد بك قبل دي بك كشرت علشان محيتي دلكيني دتكيني بوعي جنون وانا حقيقة هو الصومرة ماشي مركان صوغ قري waxaan ugu imi saddex gabdhood hore laba gabdhood hore ugu jiray laba qoys hore ugu jiro caruur haysta iyo gabar saddex been iga soo horeyso maama saaxiibada oo aanu isli saaxiib ku ahayn gabadheedii oo iyadoo yar igu dambeysay oo 14 jir igu dambeysay marka hal sano laba sano saddex sano kala maqanahayo intay maxay tahay nin guursatay ay maxay ahayd uur yeelatay oo ninkii Saambiyo iyo meelaha gaari buu waday isku dhaceen ayuu aad tiri ma aragtay ninkii uurka iga cararay bayba meesha ku soo xareeyay saddex habeen markii la keenay ka hor marka saddex bilood waxaan ku jimeel taris la yiraahdo oo marka waxaan bay Soomaaliya la igu celiyo aad baran iyo tabsana waayo markii taraam yiri marra Soomaali arintaas ay ugu kaliftay meesha inaan galo inta badan anoo Mareykan iyo dhowdhow markaas maartay bixirba ayaa la taraam wuxuu Soomaali marro sida darteed ayaa UN barashaka u saar waxaan wataa 7 caruur baan wataa adigu maxaan waridin ka daarinayaa meesha maan gal markaad galayso maxaa laga saxiixaya صحيح بيو UNHCR يهيس هاي الله ماشي هيستعيد كقاضية محي راهن وحي راهن وعناد محي هاي توي قفي هاي وعناد ماركتي عاد محي هاي تسحيح دا بوق بالك صهر نجيا كو ماشي عم تطالع ولا كريم وطالع كريم حيتا وأولي الدقيق وحي كيا قعنو ترين عم تطالع ولا كريم عم تعرهين محي هاي توي ما كين كرت ما بلا سوق لي كرت ما كين كرت ما سوق لي كرت واقرت waxa la yiri balanta already aad bixi kartaa waa saddex inaad xarunta cusbitaal ugu geeriyo cunugaaga in aad UNHCR balan ka leedahay in aad balan ka leedahay maxay ahayd toy safaarad bis meel kale aad kartaa ma jirto bataatan maxaa lagu siinayaa marka uu service guriga dhexdiisa yaala waxa lagu siinayaa dharka iskoolka kabaha iskoolka beenadaan sheegin waa lagu siinayaa shaqafyada ilmuhu shaaha ku sii qaataan suuxii iskoolka ma soo noqon bas baa qaada ilmaha aniga marka ilmihi ku baranaya waxa bis ku quflay markaan galay ilmihi baa ku baranaya lagu leeyahay bas baa ku qaaday iskoolka ku soo celinaya waa baaneeri ka yare cuntana waa taala waa maxaad ugu cararaysaa meeshan kadeedkooda guri kiraysan karin oo waa karo maxay tahay ninka ilmaha ma barabo war maxaan idin ka daalinaya ماشي الصوغرة dadkii markaan waxaan xamlayd ka soo saxiixa wana laga soo saxiixa oo sidaas meesha ku soo gasheen ha okay
adigu afrikaan waxa weeye balaaye ma waaye markaan meesha soo galay oh waxaa idinka hilmaamay teleefon wax la yidhaha ma jiro telefonka keen baa lagu yiri telefonka markaan meesha laga saxeynaan galay telefonka keen xafiiska markaan tagay meeqa telefoon aan wata halkaan telefoon markaan xafiiska tagay waan wareejiyay wiil aan dhalay oo roon baa isna mid watay isna wuu wareejiyay markaan soo wareysanay Soomaali wad garanaysaa saddexda xabo meesha iga soo wareysanay maxaad ka hadashaa na sidee yeesha naam saxba laga hadle tuugnima xoogaa meel wax lagu soo galgaliya yaa tuugnima soo galnaya waxaan bay isru wada kaarta ay ka wataan been lacag naga helaan askarta ridda taagan ayaa waxaad siinaysaa 200 oo Kenya mariya wad garanaysaa qofkii Kenya jooga kii kalena uu iska dareemi karaa $2 bad siinaysaa wuxuu ku kariya maaskay waxa yar la naflay baa tahay meesha maxaa lagu kariya ugaali maxaa lagu kariya digir suugad waa digir saybari wigi maalin baa hilib la kariya miya masala maalin baa hilib la kariya ay doon spinach ugaali waxa ay qashinka iyagu cunaan ma waxa inagu cuni karnaa ma cuni karno meeshii laba wig markaa ku jiray waaba wareeray madaxii ay jaab garoobay aduu gabadh meesha nooga soo horeysay alla way idinka hilmaamay gabadh kale oo America markii ba aadi doonta oo Soomaali Ethiopia u qoran qolada Soomaali Ethiopia markaa waa la qaaday Mareykanku wuxuu already diiday waxay Soomaalida gabadha Soomaali Ethiopia u qoran maadaama international Ethiopia u qornay way naga bixi doontaa wax yar kadib gabadhaas ka hilmaamay Maryam Bayran ila khayr Allah siiyo Mareykan bay hadda joogta gabadhaas aniga nasteexaba gabadhi saaxiibada dhashay oo maxay tahay nasteex saddexda habeen soo horeysay ayay telefoon yar noo soo xadda iska hadalla aduu wad garanaysaa qof dad leh oo maxay tahay aduu 2 kun lagu soo diriyaa Kenya money 3 kun lagu soo diriyaa $50 qof meelaha jooga oo cawaaday waxba iska helaysaa okay sidaad ku bixi marka sidaad intaad baxdo wixii naftaada horta ilmaha guriyada ku soo gadanaysaa adigu cream kala aad buu dheeraanaya war malaynaya waxaan ku yiri waad xanuunsanahay baad oranaysaa marka maalinka aad cuntada ka digi weydo wayna tiraa waa xanuunsanaya already markii waaba lagu fahmi doonaa lagu fahmi doonaayo haddaan noqono waxaan usayna week baa lagu leeyahay soo noqo maalin hebla kiniinkan qaado maalin hebla soo noqo weeka dambe wayna marka sakaraad iska dhigtaa aad baa idinka qoslaya meeshaas waa meel imtixaan maxaanu samaynay marka waxaanu samaynaa waa tagaysaa markaa tagto waxay noo ogolaatay marka Afrikaan waxa way saf garanayaan de shafrood isma afgaran waaya la yiri waxay noo ogolaatay marka kabaha calalada shaambada lagu qubaysto waxa soo dhan saabada dadka lagu dhaqdo waana la siiya buraashka lagu cadaydo waana la siiya kolgeedka waana la siiya cuntadaas waxa jikada laga kariyo waana la siiya wax kale service ma gaariga ilmaha iskoolka geeynayo ku soo celinay isna waa service okay maxaa dhacay marka waxaanu sameynaa marka maalinka cusubta lagu ogolaado ayaamii hore wana la qalqal jiray waaba la diiday markii dambe may ma xanuunsan been baa sheegsan waxay arkeen dadkii oo qofkii baa sakaraad la waa xanuunsan isbitaal baa isbitaalka markii lagu geeyo qofkii meeshuu dhakhtarku u gali lahaa oo dadkiisa sheegan lahaa naag ruufiyana ku wada ku daba taagan oo askari camal sa ku daba taagan oo Kenya oo feeru inta leeyahay aniga iga sii buuray batroola la dhahaa batroola shaqadeeda batroola lagu dhahaa laakiin fanisaa dhahaa marka naagtaas way ku ilaalinaysaa dhakhtarba ma rabtid adiga marka dhakhtarka waa meelahan markiiba waaba caafimaadday ila qof waxa adeeg doonaya markaas waxaad oranaysaa hotelkii yaraa iyo waxaad iska cunaysaa kabada cas iyo waxaad gadanaysaa wixii kaama mana shaambada iyo wixii waxaas way ku ogoshay wax la cuno xabad nacnaa hadii xabad nacnaa hadda waa xabad nacnaa nasteexa hadda waa idin wacay idin la hadal siinaya waa idin macna codkeeda maqashiinaya nacnaa baa laga qaaday nasteexa ay caruurtayda oo wadayada gabadheed way yara marka gabadheed reemeesh ku dhashay uurka ay la soo gashay marka de maxaa dhacay waa kadeedan naagihii anaga way isku xumaan waa isdhibnay haddaa qaylqayliso waaba lagu bixinayaa baa lagu leeyahay ma qabtin allah caruurtan adoo walba la waxaysnayda way intaas wax ka heshay dad baa maalin walba baxayo Canada u socda Australia u socda Congress meesha Soomaali kaliya kuma jirto Ethiopia baa ku jira Congress baa ku jira maxay tahay Burundi baa ku jira Rwanda qolada maxaan qabiilooyin ku bartay Afrika oo dhan ma aqoon meesha ku bartay waxa ku jira Ugandais baa ku jira Afrika barba ku jira Arab kuma arkin Arabta way soo galaan way ka cararaan baa lagu yiri dadku inaga horreeyay way ka cararaan Suudaanta midmadow waliba habeen mid aan khatar ku galay cunug disha ilmaha si xun u dilay Suudaaniska cunug bay si xun u garacdo saaniya nasteexo qalbaabka inta ku jibinay cunugo sankii afka dhiika wada baan intaan qabanay ka celinay aan la dirnay la suukaayay markaas subaxii baan qaylqaylinay waxaan cunugan waa dhimanayaayo adaba kadib wad fiicantii hawl qabo fiican baad qabateen baan la yiri adigu ilmihii markaba inay disho way ka cabsatay markii arrintii xagga gaadhay xafiis taasna wayna soo martay
aduu sheekada unbaa halkaa ilaahay adooma soconay sheekada aanu socday marka waxay ahayd xoogaa naagtaas soomaalida way necabta anu waan garan waa ma dadka gaarsi meelaha lagu leynay waa dadkeedii oo soomaalinimada ma aqaan ummadda soomaalida oramada Ethiopia Soomaali ma maqli karto dadkan timaha adag Ugandais Rwandais Burundis Congolese dadka way caawisaa macnaha hadiiba hadda cuntada waxa ku adkaysa xataa si kale waxay jikada caanaha laga siinayaa waxana laga siinayaa wax dhaqaale ah bay iska leeyihiin annaga haddaan hadala xaq uma leeyahay cunugayga iyo cunugeedo islaam naagta madowga cunugeedu caanu qaadanaya kayga caana ma leeyahay adigu Ethiopia-ka inkastoo qoryaha gaalada ay iyagana xoogaa gaalnimadaas ay ku xeerin jirtay laakiin annaga aad bay geeska loo gelin jirto dee dawlad ma lihin maxaan samaynaynaa dawladiga dalmidna ma lihin wadanka iyagii balaayaa ka socota TV baa maxay tahay laba TV baa laba saturum waxaa fadhiyada waad garanaysaan oo cuntada lagu cuno oo laba aba midba TV la dhigay midna raggaale baa midna dumarkaale baa lay qoxoonti wax sharci ma qabtee marna tanaa loo yaaca marna tanaa loo yaaca waxaas marka saan Soomaaliya qarax ka dhacay balaayo 14 October maalintii balaayadu dhacday halaagu dhacay meeshaan ku jirnay war maxay idinka daalinaya marka xagaa u baxnaa xagee aadnaa ma baxayno ilmaha iskoolka hay'ada iskoolka sabaad muhiim waa maalmaha kamid ah waad ka baxaysaa niyad waa iska gahay gabdhihii hadda wali laba ku jira meesha laba hadda wali ku jira ay wiishina iyaguna ka baxaan laakiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala saamaha wada way ka soo bixi doonaan maxay tahay anaga hadda sanad waa ka soo maqanahay baan iyo nasteex iyo Toronto joogta war maxaan idinka daalinayaa maxaa dhacay waxaa la sameeyay marka habeenkii igu taariikhda badneed waxay ahayd nin askari ah baan alaab u dirsanay waxaanu niri walaalo orod bax intaan 200 siinay alaab noo soo caruurtii marba ka hormanaysa ugaali iyo mukaati waxa la rootigan oo maxay tahay oo keeyanku mukaati bay dhahaan sawaaxil baa lagu dhahaa iyo ugaali marka afadaali xataa mukaatigi subaxi baa yar quraac la siinayaa dad qadadii siisan la xataa helimaysi inta quraacdi lagu siiyay bis mardo mehelis marka mukaatiga laftigiisa baa qaali meesha ka rootiga baa meesha qaali ka way cunuga ugaalida ku cuni waayo maalmaal baa waxa la kariyaa bariiska iyo ugaalida roon waa bariis dhagxaan adoo cuntada askarta loo kari jiray waa maqlay inuu askarna ma arag anigu markaan garaadsaday dawladdu way dhacday oo macnaha askarna ma arag adoo cunta askari ilmo yar baan wadana maxaa dhacay alaab baan waxaan u dirsanay nin askari waxaan niri walaalo alaab boqola qaado alaabna noo soo wuxuu yiri riddan alaab kama soo gali karo camera ku xidhay horta markaan xoogaa joogo meesha camera lagu xidhay naga waxay dirsadaan bal askarta maano askar bay bedesha askarta markay bedesho askarta kale ka hadana waa barna 200 300 baa sinax baa u dirsanaa marka filimkii weyn hadda dhacaya marka wuxuu yiri sidee idinku soo galiyaa camera la xidhay meel luuqa oo madow ah oo waxa jira gadaal oo aan mugdi oo ma laambadii may ka jabiyeen ma ogin marka wax iskaga soo waxaynaya isagana bari doon wuxuu halkaas ay ku soo tuuraya alaabta dhowr bacod baan ku soo kala xirxiraya silk baa meesha ku warsan deerkuna waa dheeriye marka bacweyn lama soo tuuri karo dhowr bacod baan soo dhigay waan soo tuuraya marka maxay ahayd halka ka qaata marka sidee ku ogaanaynaa sidee ku ogaanaysa inaan banaanka joogno guriga lagu xiray ridda waa lagu xiraa marka xargaha dharka lagu wado iyo xarga badan geed weyn oo afakaadha iyo balaayo iyo dayr weyn waa adu garoon balooneed camal u dabaq ku dhex yaala baroonkaas anaga iskale waxna ilmaha baroon ku dheela waxna dharkaana ku dhaqana tuubooyinka biyaha dharka lagu dhaqada ku yaala maxay xargaha dharka lagu wada ku yaala marka waa meel yar mugdiya markii hore mugdi ma yahay laambad baa ku xidhnaa laambadii ma askarta miya dadka wax ka siiyo oo macnaha markay la laalisho ka safra okay niman marka nimanka madowga ah oo Congress iyo Burundi iyo wuxuu ahaa ma qaan nimba habeenka isaguna midha wax dirsaday waa la kala dhuntaa marka because askarigu haduu aniga wax ii keeno oo bari adiga uu ka diido waxa baranaysaa waa shaqada meesha ka jirtay ba ay ka dibiyana waxay keentid ma keeno karo marka uu shaqadayda hay qoon Soomaaliyeed hebel baad u keentay habeen hore aan arko marka askarigaas haduu aniga wax ii keeno qof la tus hadda kuwi kale wuxuu keeni jiray halka dhoomanay banaanka aan soo baxnay inaan nasteexo waxaanu niri maxay ahayd maya aniga nasteexma aniga saacadiyo banaanka soo baxnay waxaan niri marka aan alaabtii wuxuu yiri marka banaanka soo taagaya ii dhahay foori baaqa maya aniga baaqa yiri baan dhahaya si aad ku fahantaan inaan meesha taagnahay marka idinkuna dhahaya marka saa maqashaan
ilaa askartii banaanka joogta iyo dadkii dhammaan oo meelaha marayo dabaqa inta kasoo degan habeenka alaabaha iyo bustayaasha banaanka la isaga soo bixiyo iyo wax urursanaya iyo dharkii la dhaqay iyo wixii oo dhan mashiino maray meeshu dharka gacantaad ku dhaqanaysaa banaankaad ku waranaysaa kuu qalaalaya mararka qabowga badan jiro roobka badan jira maba qalaalaba markuu cabaar maqnaa dee aanu sirtaybku imanayay taleefon xunoo yar baanu qarsanaynaa marka waan soo socdaa isdiyaariya buu nagu yiri banaankaan tagnay marka nin baa isna wax dirsaday oo madhaa mid kale miyuu wuxuu dirsaday isaga wuxuu dirsaday ma kala garanayno ninkii markuu na arkay wuu cararay wuu naga dhuuntay wuxuu is yiri yaan maxay ahaydtay naagahani kurfiyaamin adoo meesha wax ka qaadanaya ofiska kuu sheeguu naga baqaya annaguna isaga baan ka baqayna markaan alla inuu tagay annaga meesha soo taagna uu leeyahay bac baa soo dhacday waa qaadan bac kalaa soo dhacday saddex bacood ilaa saddexda bacood mid anagu ma lihin ninkii baa leh meesha warwareegay maxaa ku jira marka guriga baanu tagnay bacdii u horreysaanu saa u furnay waa cararaynaa waa dhuumanaynaa markaad cunayso wixii guriga waad qufulaysa hoos baad ka xidhaysaa waxbaad kusoo tiirinaysaa ma aaminaysid haddii lacala lagu fahmo askari baa lagaa soo dabadiraya ama dad baa lagaa soo dabadiraya oo lagugu soo furaya wixii waa lagaa qaadaya haddii lagaa qaadana dhastabiinka kabadhka baa lagu ridaya adigana dambi baa kuu yaalo report UNHCR baa lagu report garaynaya naagtaas sharciga meeshuu hoggaansan weyday maalba waxbay keentaa waxbay soo gadataa casas cuntadiiba xalaash ahayd baa la dhuumanaysa bacdi u horreysay markaan saa u furnay waxaa nooga soo baxay dhalooyin khamre ku jirto iyo ilaa ninkii alaabta lagu dirsaday iyo way argagaxday marka tubaako iyo wax oo adigu uu ninka isku dalo annaga markaa ma ku fakarayno qof kalaa meeshan wax looga soo diraya